Bismillahi Raxmaani Raxiim. Salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Haddii Alla qadaro waxaanu galabta ka hadli doonaa astaamaha lagu garto qofka inuu wax jecel yahay. Jacaylku waa abuur ku beeran guud ahaan noolaha, waana dareen qofka ku tuquntuqiya amba u riixa uu raadiyo lamaane kale, wax dhammaystiraya qaybta ka maqan. Haddaba haddii uu qofku isku arko astaamahan, dabcan waxaa jira jacayl, amba ugu yaraan in uu taagan yahay afaafkii jacaylka, intaa kadibna uu geli doono badweynta aan laga dhammaan ee hilowga iyo kalgacalada. Haddaad isku aragto astaamaha ah: kow, inaad eegto qofka adigoo aan kantarooli karin indhahaaga, labadaada indhood hadday ku maqnaadaan qofka, marka uu ku soo eegana aad waabanayso, inta uu kaa sii jeedana qoortaadu si maamul la'aan xaggaaga ah ay ula wareegayso. Laba, haddii aad isku aragto marka aad codkiisa maqasho in aad dareento farxad, marka uu ku soo eegana ama markay ku soo eegtana uu wadnahaagu xoog u garaacmo, taasna waa astaan labaad oo ka mid ah astaamaha jacaylka. Halka uu joogo marka aad imanayso amba ay imanayso, haddaad isku aragto adigoo aad mooddo inaad dabayl ay ku xambaarsan tahay, taasna waa astaan kale oo muujinaysa inaad wax jeceshahay. Haddii aad isku aragto adigoo markaad codkiisa maqasho farxad barooraya, jecel inaad hadalka ku darsato sabab la'aan, taasna waa astaan muujinaysa inaad wax jeceshahay. Intaasaynu ku koobaynaa tilmaamaha. Waxaa jira astaamo kale oo aynu ka hadli doono haddii Alla qadaro.